sanadii saddexaad ee hijriga nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu guursaday Zaynab bint Khuzayma. Zaynab aabaheed wuxuu ahaa Khuzayma bin al-Harith bin Abdullah bin Amr bin Abdi Manaf bin Hilal. nasabkeeda markaa fiiriso waxaad garanaysaa in nabiga sallallahu alayhi wasallam ay qaraabo ahaayeen. hooyadeed waa Hind bint Awf. waxaa lagu tilmaamaa inay tahay carab sodohda ugu karaamada badan oo waxay sodoh u ahayd khalqi midka ugu sharafta badan Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo saaxiibkiis Abu Bakr as-Siddiq iyo nabiga adeerkiis Hamza bin Abdul Muttalib. sidoo kale Jaafar iyo Ali oo ahaayeen ilmaha Abi Talib nabiga adeerkiis oo waxay ahaayeen nabiga ilma adeeradiis Jaafar iyo Ali. waxaa xusid mudan in Zaynab bint Khuzayma iyo Maymuna bint al-Harith ay ahaayeen walaalo isku hooyo ah. Maymunana ay ahayd xaasaskii nabiga midii ugu dambeysay uu guursaday sanadii 7 hijriga. xilligii jaahiliga iyo islaamka labadaba Zaynab waxaa lagu yeeri jiray ummul masaakiin, hooyada masaakiinta, waxaana lagu bixiyay magacaas dabeecadeeda oo waxay ahayd ruux masaakiinta u naxariista oo deeqsi ah. waxaa lagu tilmaamaa inay tahay ruuxa ugu deeqsisan xaasaskii nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxay ahayd xaaskii shanaad uu nabiga soo guursaday kadib markii uu ka dhintay Ubayda bin al-Harith oo ku shahiiday ghaswadii Badr sanadii 2 hijriga. nabigana wuxuu soo guursaday sanadii 3 hijriga. muddo yaraa kasoo wareegsatay markii ay ka mid noqotay ummahatul mu'miniin. masaadirta qaar waxay tilmaamtaa inay nabiga la nooleed 2 bilood ilaa 3 bilood, kuwa kalena waxay gaarsiiyaan ilaa 8 bilood. waxay dhimatay Rabiicu Thaani 4 hijriga. waxay ahayd qofka kaliya ee xaasaska nabiga oo ku tukaday salaatul janaaza, halka Khadiija markay dhimanaysay salaatul janaaza aysan jirin. waxaa lagu duugay qabuuraha Baqiic radiyallahu anha wa ardaaha. ayar mai la tawatin kon tawa dawal ñol wona tarjiyan ci ko den waa isku dugnay dad iyo duuye waxaas waa isku dugay ilaah mooye aadnina ma oga ma maqash tabtaasaan lagu subax saaka inta guriga iyo ceelka u dhaxaysa ilaah baa ka marxaantay aniga ninkaas macluul baan la soo gaaray kuwa hadda agteeda fadhiya xalay ma ay cashay maskaxdeeda waana fududaatanaya roob la'aan iyo baahida maskaxda nagala baxay. tidii ariga ayaa ay dhaaftay waxaan isiri ciyaalka shay aad u xaaqatid shaygina waa laga qaadan waayay. والله nolosha carruurta garanaya aad mid xun wallahi aad bay u xun tahay. haddaba walaalayaal aan ku dayano ummul masaakiin keena wax haystaa kaabo kan miskiinka ah. aakhiro waa la isweydiinaa ma ka warqabtaa dariskaaga baahan.